muxuu yiri wiilkii waxa la yiri hebelow maxaa adigu u soomaysaa maba tukatide maxaa u soomaysaa maba tukatide siiri salaadu yeelkeede ilaahay anigii ilaahay saxan bariisa ku kala dhimaan mayno waa dhab waa dhag oo dhammaystiran Dheeman TV. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Jaalayaal iyo johoradooyin soo dhawaada meel kasta dunida daafiyada ka joogtaan. Waxaan idin leeyahay waa ninka Cabdikhaaliq Macaan Dhuuxyaraa oo fiideo idin sameynaya. Laakiin waa dhab waa dhag oo dhammaystiran Dheeman TV. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe dhac ka sii gambaleelka furo fiideoga like sa gruubyada WhatsApp-ka Facebook-ka Instagram-ka meel walba storieska timeline-ka meel walba ku share gareeya meel walba ku sii share gareeya fiideoga adduunka daafiisa gaarsiiya aad baan idinkaga mahadcelinayaa sida mu fiideoyada u daawataan una share gareysaan mar walba like iyo comment-gana ii siisaan asxaabta cusub ee daawatan ay subscribe-ta u saadho maalin walba inoogu soo biirayaan aad iyo aad bay iyaguna u mahadsan yihiin warjaalayaal iyo johoradooyin maxan maanta idin ayaa saddex sheeko qosol badan waxaan ku bilaabayaa sheeko dhacday curfew inta lagu jiray ama xilligan lockdown-ka lagu jiray maxaa la yiraahdaa gurigaaga joog stay home-ka lagu jiray sheeko dhacday iyo laba sheeko kaleeto baan idin hayaa ma rabo inaan fi sheekooyinka dhaadheereeyo maadaama in sheekooyin qosol iyo majaajilo ay ku jirto laakiin waxaan rabaa in adinkuna like iyo subscribe ta dhac ka siisaan nimanka waxay soo gaartay gabar ba hooyadeed suuqa u dirtay marka meel walba way xirnaayeen meel wax la raaco ma jirin barabuurta private-ka kulli waa lama ogolay mar raba sheekadaas meesha ka dhacday inaan sheego qof Soomaaliya ku dhacday family Soomaaliya ku dhacday waxaan u jeedaa qoftiinka qorraxdii baa qabto soo baxay xilli hore soo baxday anu geed haraca baan hoos fadhiya meeshan waa Ohio Garden imaada waana timaadeen asxaabta reer Kampala intii fiideoyada daawatay waa mahadsantiin baa idin leeyahay meesha waa qabowgeeda iyo raaxadeeda waa dareenteen baan u malaynayaa marka hadii ilaahay ku idmaayay waxa dhacday gabar baa hooyadeed wuxuu diray suuqa awalba suuqa u jiri jiray soo adeeg suuqa ka soo adeeg gabadha suuqa waa aad jiray rafaad bay ku qabtay maadaama wax walba ay xirnaayeen oo wax la raacaysan jirin xilli dambe imaan jiray waa soo daahi jiray maalintii dambe wax dhacday gabadhii baa reer dariskooda ah oo gabar kale dariskooda oo ajnabiya adu cadaan iyo wixii doontaa noqotaa anu marraba meesha ka dhacday ciido ku dhacday inaan sheego laakiin sheekadii baan rabaa inaan ka sheekeeyo gabar ajnabi oo Soomaaliya oo dariskooda ah oo aabaheed darawal yahay oo wado gaari ambulance oo dawladdu leedahay wada bay raacday gabadha saaxiibadeeda gaariga ambulance lagu qaaday suuqa la geeyay labadii gabdhood waa soo adeegteen hadhowna odayga abahooda soo maray gabadha aabaheed waa soo maray gaariga ambulance lagu soo kaxay isla markiiba gabadha waa soo dhaqsatay waa soo laabatay markii gurigooda timi baa hooyadeed weydiisay yaa heblo maxaa maanta kugu dhacay ma haaday inta asiyaaday miyaas oo soo laabatay saytir maya hooyo ma haadini maanta meel caadi oo leega yaqaanaan soo maray tiri ma garatay dadka taraafika iyo waxaasiyo wixii lahaayeen dadka wixii lagu dhagaayo la qabanayay oo dadka lagu dhagaayay wixii raaca wax sharci darra raaca dadku waa ogtaa mar walba wax jecel wax sharci darra inay ku baxaan wax sharci darra ku soo laabtaan waxay ka cararayaan socodka badan tiitaan wax sharci darra raacnay markaan soo laabtay bay ciidankii taraafika wadada joogay waaba ay garteen buuxda oo gabarta waa gabadha reer mudugeed oo reer gaalkacyoodkeed sida noocan lama taabto waa lay gartay tiri macrifa qof gabar reer gaalkacyood reer mudug ayaa igu dhigi kara iska tag oo gabadhi la garay sidaayay maalin walba saasan soo ilaayaa abartii u dhibtay turu khaldan ba u dhibtay ma garatay yooyo taasi waata talabaad oo dhacday waxa weeyaan rabaa inaan idin sheego xilligii siyaad barre waliba sanadihii dambe dawladda kacaanka dadka waa la xajuumin jiray lama ogoleen qofku maxaa la yiraahdaa inay dadku hadlaan dawladda iyo afaaraheeda iyo siyaasadda laga hadlo lama ogoleen marka maxaa dhacay hadaan la ogoleen waxa dhacday horta waxay oran jireen dadkii barigaas joogay ama afweyne raac yani siyaad barre raac oo soo raba u yaal
ama afgooya aad oo xamarba iskaga tago afgooya aad ama afkaaga hayso marka dadku waxay u badnaayeen afkaaga hayso cidnaba ma hadli jirin dawladii waxa laga ma hadli jirin marka waxa ay soo gaartay dadku kama ba hadli jirin siyaasadda iyo la isku yimaado in laga hadlo lama ogolayn marka waxa dhacday haday saas jirtay nin dareewal ah oo la oran jiray Faarax Galooley sidaan maqlay Faarax Galooley oo wuxuu dareewal u ahaa ciyaalka Maxamed Siyaad Barre dhalay caruurtiisa buu iskuulka geyn jiray oo ka soo qaadi jiray iskuulku u qaadi jiray gurigu keen jiray dareewal buu ahaa dareewalka ciyaalka gaari ku qaadi jiray waa Faarax Galooley marka ninkaas way ninka sheekada ku dhacday sheeko qosol badan weeye hadii aad yaani qosolkaada isku xajin karin afka wax saarsataa maro weyn saarso oo waasaca oo qosolkaaga saan loo maqal waxa dhacday ninkii Faarax Galooley isagoo maalmaha kamid ah ciyaalkii gaariga ku soo wada oo guriga u soo wada oo guriga u soo dhow baa waxa dhacday buu dhuusay kiiga dareewalka gaariga waday baa dhuusay saa gabar gabdhihii kamid ah oo madaxweynuhu dhalay baa waxay tiri dhuusa uraysa bay tiri markaas wuxuu yiri naayaa heedi aabaha baa afkana qabtay oo yiri lama hadli karo aduguna dabada hana qaban sheeko qosol caan baxday noqotay ilaa Siyaad Barre gaadhay ilaa wadanka ku faaftay aabaha afkana qabtay yiri yalla hadlini aduguna dabada hana qaban buu yiri aduguna dabada hana qaban ma garatay sheekadaas rasaas u dhacday tan saddexaad waxa weeye maalin dhaweyd ba dhacday Ramadaan hadda lagu guda jiray nin baa la weydiiyay waxa inoo hebelow adigu ma tukatide maxaad u soomaysaa oo ka soomaysaa salaadii la iimaan weeyday markaas yiri Ilaahay subhanahu wa ta'ala koonka abuurtay Ilaahay koonka abuurtay salaadu yeelkeedbe Ilaahay koonka abuurtay saxan bariisa ama haaf bariisa kuma kala dhiman karno inaan haafka bariiska iskaga tagaa leeqay ninkaasina nin afkiisa isku difaacay waaha maanta fiidiyowga waa idin soo yareeyay idin kuma dheerayn hadaawna fiidiyoyada aniga ma dhaadheerayn de waxaan ka codsanayaa khiyaarta nagu cusub inay subscribe dhac ka siiyaan fiidiyowga share garayaan like iyo comment ku qabtaan in asxaabta gaarsiiyaan dawaka wada shaqayn wacan waxaan leeyahay intaan fiidiyow kale kala ku kulmayno salaamaat min kulli aafat والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادك ودمايستران ديمان تيفي وادك ودمايستران ديمان تيفي